السلام عليكم سود هذا أصحابي تاريخ علم الفلك فضلا والله انتينا برنامجك بلابي فيديو لايك صار هذا نقول استنى سبسكرايب صار ونقول صوبير اد بدل ما حسنت نلا سي داو برنامج كودا ماستر ساو داوتو muuqaal ku soo dhawaada barnaamijka taariikhda cilmi falaka dadku waxay weligood ba jeclaayeen inay fahmaan isla markaana ogaadaan inay dunyooyin kale oo sida dhulka jiraan shan meere qoraxda dayaxa dusa وحرير فرارة يعرجح يراجع وإيش الوارك كرايا قنير لولها تانية طبعاً قرن كور كواسو سامين كلها تدك وقت قاس نولا وقت يدي هراء تدك حديقيها ندها وحي قول لها يسد افتينا قاره عركة ودح مريان حديقها قار وقت يدنا أي صوبحان كواسو استعمال ترين إنه يكون صفران وقدر دولك يبدأ هواوين لحدوده البحن موينكي هراء سيدا جريكا شينها بابليون يكو وكلا وحي من السنين in dhulku bartan u yahay dhamaan koonka baabilyoon ilbaxnimadii ugu horeysay ay yeelataa aqoon iyo faham meerayaasha waxay ahayd baabilyoon oo ku dhex taalay Mesopotamia waqtiyadii u dhaxaysay 2000 sano ilaa 1000 sano qoraaladu oo ku beegan 700 sano ciise hortiis kuwaas oo ka hadhay ilbaxnimadii baabilyoon waxa ku xusan liiska dhowr meere oo ka mid yahay waxariir sidoo kale waxa ku qornaa liiska socodka meerayaasha waxariir dusa faraare cirjix iyo raage iyo meelaha ay ka iftiimaan waqtiga habeenkii iyo waqtiyada la arki kara sanad Giriiga iyo Roomaanka horaantii ilbaxnimadii Giriiga aqoon la mid ah tan baabilyoonku uma aanu lahayn meerayaasha iyo xidigaha laakiin qarnigii 6aad ilaa qarnigii 5aad ay qabaa'ilada Pythagoras ka samaysteen qaacidooyin cusub ay ku qeexayaan qoraxda dayaxa dhulka iyo dhowr meero kale oo ku wareegaya dab bartanka ka ololaya Pythagorasku waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee sheegay in xidigta la arko qorax dhaca iyo tan la arko qorax soo baxa inay yihiin xidig isku mid ah si kastaba ahaatee horaantii qarnigii koowaad ayaa Giriigu horumariyeen xisaabta meelaha iyo waqtiyada la filayo in la arko xidigaha taasoo u sahashay inay ku kala ogaadaan xilliyada waqtiyada roobka la filayo iyo inay u adeegsadaan socdaallada safarka Hindiya qiyaastii sanadkii 499 ayaa xidigisiyahan Aryabhata ee waddanka Hindiya sheegay in dhulku ku wareega xariijintiisa taasoo ku qeexay in wareegga dhulku ka yimaado dhanka galbeed sidoo kalena wuxuu aaminsanaa inay jiraan tiro kale oo meerayaal dhammaantoodna ay ku wareegaan shay ka weyn si kastaba ha ahaatee arday baranaya cilmi falaga sanadkii 1500 Nilakanta Somayaji ayaa sii horumariyay qaacidadii Aryabhata asagoo ku daray in dhulku sameeyo wareeg dheer oo uu ku wareegayo udub dhaxaad iyo in meerayaasha kale ah waxariir dusa faraari cirjix iyo raage dhammaantood ku wareegaan qoraxda muslimiinta horaantii qarnigii 11aad ayaa aqoontii cilmigii dawladda Islaamiyiinta aad u horumarisay fahanka iyo adeegsiga cilmi falaga waxaa jiray dugsiyo gaar u ah barashada cilmiga xidigaha kuwaasoo lagu baran jiray waqtiyada iyo meelaha ay ka soo baxaan xidigu isla markaana safarleydu u isticmaali jireen jeexiyaan sidoo kale waxa la sheegayaa in bartamihii qarnigii 12aad xidigisyahan Ibn Bajah uu sheegay inuu arkay laba meere oo weji madow aadna ugu dhow qoraxda kuwaasoo horaantii qarnigii 13aad ku fasiray saynisyahan Qutb al-Din Shirazi inay ahaayeen meerayaasha waxariir iyo dusa taasi waxay muujinaysaa heerka aqoonta fiican ee muslimiintu waqtigaas u lahaayeen cilmiga xidigaha iyo sida ay u isticmaali jireen toddobada meere ee Ptolemy 1 dayax 2 waxariir 3 dusa 4 qoraxda 5 faraare 6 cirjix 7 raage horaantii kacaankii sayniska ee qaaradda Yurub waxa la fahmay in meerayaashu yihiin doonyo dhisan lehna jid la mid ah kan dhulku leeyahay aqoon-yahanadii cilmi falagu waxay isku keeneen cilmiga xidigaha ee dhammaan dunida ka jiray waxay ogaadeen in dayaxa iyo qoraxdu ka duwan yihiin meerayaasha kale sidaas darteed waxay ku dareen liis ka duwan liiska meerayaasha horaantii qarnigii 17aad waxay heleen in meerayaasha cirjix iyo raage yihiin duni ka weyn dhulka tan iyo intii la gaadhay qarnigii 19aad fahanka iyo aqoonta xidigaha iyo meerayaashu way sii tariyeen oo way sii badanayeen qarnigii 19aad dhexdiisa xidigisyahanadu waxay ogaadeen in dunyooyin yar sida Ceres, Plus iyo Vesta aanay ahayn meere laakiin ay yihiin duni yar sidaa darteed waxa looga magacaabay asteroids waxaana kamid ah dhagaxan la leeyahay waxa ku soo socda dhulka sanadkii 1846 waxa la helay meeraha duci Neptune kaasoo lagu daray liiska meerayaasha si kastaba ahaatee horaantii qarnigii 20aad waxa la helay dunida yar ee Pluto taasoo waqtigaas la aaminsanaa inay ka xajmo weyn tahay dhulka waxaana si dhaqso ah loogu aqoonsaday meeraha 9aad qarnigii 21aad meerayaasha 1854 ilaa 1930 ilaa 2006 waqti xaadirkan iyo ilaa imika dusa
وحرير دولك فراري عرشه راقي ورانو دعي وسيدة انت الله قرني كوبي لاتناد wuxuu ku bilaabmay iyadoo aqoon fiican loo leeyahay meerayaasha dayaxyada qorraxda dunida yar asteroidska iyo dhammaan walxaha ku dhex jira bahda midaysa qorraxdu sidoo kale waxa murada ka loosmay in Pluto ay kamid tahay meerayaasha iyo in loo aqoonsado duniyar ugu dambeyn sanadkii 2006 waxa la isla afkartay in Pluto loo yaqaano duniyar taasoo tirada meerayaasha bahda midaysa qorraxdu ka dhigaysa 8 meere وحرير دوسا دولكا فراري عرتاح راقا يورانيا دعي dhinaca kale maadaama tiknoolajiyada iyo ilbaxnimada dadku horumartay waxa la sameeyay teleskoobiyo waaweyn oo lagu fiirinayo baha qorraxeedyo kale galaagisiyo kale iyo dhammaan xidigaha ku baasan koonka sidoo kale waqtiga waxa la dul tagay dayax gacmeedyo satellite ayaa hawada loo diray dayax gacmeedyo ismaamulaya faraare lagu dejiyay xidiga badan iyo galaagisyo badanna waa la magacaabay alla ayaa soo waxa hawada ka jira taawada maanta barnaamijkeenu inta inoogu joogo waxaanu ku saabsanaa taariikhda cilmi falaga waqtigii hore ilaa waqti xaadirkan